السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحيري أحمد يوسف موسى حوق سيدي حاملان قرأي تاسو مقع مان ليهي waxaan deganahay magaalada Hoorso. Xoog sida wuxuu ku dhashay isbitaalka Faransiiska ee Dirnaba maadaama uu aabahay uu u shaqeynay shirkadii tareenka ee Faransiiska Itoobiya. Waxaan ku barbaaray magaalada Hoorso elementary schoolkaygii. Markii dambe waxaan ka mid noqday jabaadii 1977ka jabaadii Soomaali galbeed. Ku barbaaray wax ku bartay ilaa iyo waxbarashadii xaggaas dagaalo kala duwan iyo waxa waa soo galayba markii waxaa laga qaatay dhulkii taariikhda magaalada Hoorso. taariikhda magaalada Hoorso markii ugu horreeyay shirkadan tareenku ay soo martay horta waxaa ka horreeyay walaal la yidhaha musion buur halkan baadiri la yidhaha oo kuwan kaatoliigu ay degeen sahamayaashii reer Yurub. markaa kadib waxaa shirkadamaa soo bilaabtay hawshaa dhisantay. markay kaatoliigu ay yimaadeenba way saamiyeen dhulkan oo deegaanka. waxaa markaas ciidanka Hoorso arrinkaa kadib Hoorso horta waxaa burtukaankan geedka la yidhaha iyo mandariinka saas ku arkaysiba waxaa laga keenay Uganda. Talyaanigaa keenay. talyaanigu tijaabo Etoobiya inuu ku tijaabiyo ayuu u keenay. beertan baa lagu beeray halkan burtukaankii ugu horreeyey mandariinkii uu noqon kara erer loo tallaabiyey. intaa kadib Hoorso ay magaaladii noqotay iyo saasa burtukaanka la beriyo waxaan intii dee shabankii ka dambaysa iyo intii ka horeysaba waan ku noolaa beero wanaagsan baa jiro la yaqaan. beeraha xataa waxaa jirtay mara qudaarta aan u diraynay Yaman burtukaanka Hoorsiyo ilaa Yaman iyo la geynayay ilaa dibadda loo dhoofinayay. wixii dagaalkii baa baaba'ay halkan dagaaladii xumaa ee ka dhacay darteed baa beerihii dadku ka qaxay ayaa beerihii la qaatay. waa maxaa loo qaatay agoontaad ku leesheen halka dad ciyaalkoogii raggaas ku leesheen halka ciyaalkoogii baa loo qaadanaya baa beera oo lagu masruufaya. statistigan arkay mar waxaa ahayd waa la tiriyey beeraha markii la qaadanaya nin maan joogin waddanka ilaa iyo 80 iyo burtukaanka ku dhasay 86,000 oo geed oo ku dheelaya geedkiiba caleyn baa laga soo goynayay. madaniinka iska dah waxaa markaa beeraha saa loo qaatay ilaa maanta way maqan yihiin waayo ciidan baa qaatay. dadkii bacad maskiidkii baa la dubiyey magaaladii waxaa lagu kala daa ilaa soodare magaalo cad markaajabti iyo dayntii qaxootiga ku maqnay. markii dargii uu dhacayna la soo degayna nimaamkii joogay ciidankaa dabada gabanaan baa qaatay ilaa maanta ku taallaa. eeg rag baa iminka beero ayaa lagu qaatay ama account dowlad galmaa waa rag baa iska cuna shakhsiyaad baa wala iminka waa la kireeyaaba oo qoomiyadba markay qabsatadee waxbay la timaadaa moogta. kuwaa iminka yimidana inay qoomiyadda u dejiyaanoo xagga laga soo guro oo laga kireeyo iyo ganacsato ayaa jirta. dowlad deegaanku waa kii kaabineedku ansixiyey mar ansixintii ilaa iyo dowlad deegaanka ilaa wasaaradda gaashaandhigga iyo arrinkii iyadoo saa u socdo bal lagu daba jiro ayaa dagaalkii Tigray waxaa dhacay. laakiin xukuumad la-aan baan haysa lagu seexay xukuumad la-aan kada xagga Hoorso waa aragtay magaaladeeda inta ay tahay inta qarni ay jirtay adeegii halkan waxaa ku taalla substationka ugu weyn ee dabka ilaa Jabuuti. iminka loogu tagay inaa berberen ilaa Sacuudi Arabiya in loo tallaabiyo ayaa halkan ku yaalla. adeegii isgaarsiinta gaadiidka telefoonada adeeg ka maqan ma jirto Hoorso.
dowladdu waxay bixisay degmooyin iyo gobolle iyo sababo jiro looga tego waliba waxaa laguma qaaday degmooyinkeen bixinay waa kuwa xagga xuduudaha halka xuduud baa aniga xuduud baa ku naalnaa sababta ay fiiro gaar u sii weydi ma jirto xukuumadda kale waxaa jirta waxaan weli anigoo de xaggaa Soomaaliya laga maqmaqlo qabiile riixo dhulka ood isdaba socoto aroor baa la keeno halka kadinka lagu soo dhigayo ayaa jirtaana kolley xukuumaddana waan gaadhsiinay iyo odayaasha iyo tolka intaana waa laga hadlaya waa la dhammaanaya iyadana ayse xaggii xukuumadda shaabi qaybsi mar waxa loo ogoliyay ma jirtaba erar 50 kilomitir bay noo jirtaa dir dhabana maxay noo jirtaa waa 4 kilomitir bay waxay noo jirtaa diraba mar baa odhanaaban baa dhigtan baa noo dhow hadda taarada haddii wax ku darsado waa nin jii wax ku darsado waan garanaynaa dulmi baa huursa ka jira ay dowladdu ku hayso iyo xukuumaddu abadasho fiiro gaar ah hayso xukuumaddu intaasaan ka baxayaa